ra-iisul wasaaruhu maanta wuxuu la kulmay 12 ambassador oo ka socda dalalka Yurub iyo xiriiryaha gobolka Geeska Afrika EU-da u qaabilsan iyo safiirka ku-meel gaarka ah ama ku-meel gaarka kusimaha safiirka Yurub ee Soomaaliya. marka 14 ayay ahaayeen. ra-iisul wasaarahana waxaa la socday qayb wasiiradiisa ka mid ah iyo maxaa la yihahdaa iyo saraakiisha kale ee dowladda. marka waxay ahayd kulan muhiim ah. dalalkaasi waxay ka hadleen waxyaabaha ay jeclaan lahaayeen Soomaaliya inay ku arkaan. waxay qireen horumar badan oo dhan kasta laga gaaray. ra-iisul wasaaruhuna wuxuu uga warramay hawsha ay dowladdu ka wado Soomaaliya ee la xiriirta wadahadalka siyaasadeed ee ku saabsan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, constitutionka, federalism, maxaa la yidhaahdaa iyo amniga intaba. marka kulankii ugu horeeyay oo noociisa weeye. faa'iido badan ayuu dalka Soomaaliya u leeyahay. waxaana muuqatay maanta in safiiradii Yurub ay aad fahamkoodii ku saabsanaa hawsha ka socota Soomaaliya inuu aad u kordhay.